runtii waa aad bay farxad noogu tahay inaan ka soo qayb galno munaasabadda tan dahabshiil group ay ku soo bandhigayaan maalgashiga ay ku furayaan Samtel in wax laga yeesho sideedaba in wax la wada yeeshaa waxyaabaha dhaqaaluhu ku koro way ka mid tahay waxyaabaha aynu hadda markhaati ka nahay waxa weeye kambaniyada ugu waaweyn Puntland waa kambaniyo la wada leeyahay dadkii waagaa maalgashaday waa dadka ugu hodansan ama ugu laban Puntland laakiin xilligaas dad badan baa maalgashigaas markuu furaa kambaniyada qaybta anigu siyaasana waan hay ganacsadana waan hay muddo dheer ganacsigan ku jiray aad baan uga warqabaa kambaniyada qaarkood baan dadka wax kale ka mid ahay runtii xilliyada kambaniyadaasi aasaasmayeen oo lacag yar u leh dadku iska dhaqaale liitay misaal golis oo kale waagi wax lagu darsanayay dad badan waxaan u mayaa 7 nin oo reer Puntland ah baa xilligaas saamileyda ka mid noqday inta badan marka fodcada laga reebo iyo qof kale waan filayaa dhamaantood dad kale bay saamiyo wakiil uga noqdeen waxaan milyan iyo bar bay ahayd lacagtii maalinta lagu aasaasay inta kale waxa lahayd Hormuud iyo Axmed Nuur Jimcaale maanta waa kambaniga ugu ladan Puntland waxaan marayaa xilli ugu dambeeyay bay reer Puntland lacag 3 milyan oo u fureen si reer Puntland loo koriyo wax wada lahaanshooda hadda waxaan 52% bay reer Puntland leeyihiin dahabshiil ganacsigan suu u koray iyo maraaxilku soo maray xogaal baan nahay runtii maanta aniga oo shaqo weyn oo xafladeed lahaayo seminar wasaaraddeedu ay leedahay waxaan haddana uga soo qayb galay inaan munaasabadan ka soo qayb galo la jecel aan dahabshiil group u qabo maxamed Saciid waxaan mayaa hal mar baan la kulmay xilli aan Dubai ku noolaaba xarunta ugu weyn marka laga maamuli jiray Dubai ahayd baa waxa uu maamuli jiray nin reer badan oo la Faysal Loore nin Mustafa la yahdo odaygu adeeru yahay waaga isbaranay inaan expand ka rahay iyo waxba ogaaday wuxuu niyo bal consultant iyo waxbaan maaragtay nagala shaqeey marmar baan consultant iyo wax kala shaqeyn jiray markii Faysal ka tagay waxa ii soo bandhigeen inaan xarunta qabto xilligaana safar sadaal qurbaha baa igu jiray waa ka cuudartay waxaan u bandhigay nin reer Burtinla ah oo ka shaqeynay African Development Bank African bangiga horumarinta isagay qaateen muddo u maamulayay wuxuu maalinta dahabshiil sheegay dadka waa xulanaa waana aaminaa nin reer badana oo Mareykanka wakiilay ay $1 milyan bishii qabtaa weligeena ma arag marka horta iyadoo kambani kaligiis qof leeyahay iyo family leeyahay marka dadka ugu labeenta fiicna ay xulanayeen oo aysan reernimo ku xulanayn waxaan u malaynayaa Soomaaliya oo dhan nin Muuse Axmed Dawel leeyahay oo expand ka rahaayo reer Woodward waa mar uu maamulayay hadda Saciid Garseef oo reer badana baa u maamula aniga madax buu ahaa bangiga markaan ka shaqeynay wuxuu ahaa agaasimaha guud ku xigeenka xiriirka dibadda markaan Dubai ku noolaana wuxuu haystay kambani weyn oo 3 bangi Islaami ay leeyihiin dahabshiil waxyaabaha ay la guuleysatay waxa ka mid ah waxay ahayd kambaniyada family leeyahay inay Soomaali oo dhani aysan reer loogu shaqeyn haday iyadoo guuleysatay maanta malgashi ay soo bandhigtay aad baan ugu dhiirigelinayaa in laga qayb galo insha Allah dadka qayb galana ka mid baan noqon doonaa tamartu wax ka sabaan noqoto aad baan ugu dhiirigelinayaa in laga qayb galo ay sabab tahay kambani guuleystay oo shaqeynaya in wax laga yeeshaa waxay ila tahay inay tahay fursado dahabi ah oo maaragtay dahabshiil maxamed Saciid iyo bahda dahabshiil waa aad baan filayaa inay qaraar fiican tahay in lala yeesha haday guuleystaan iyagoo kaligooda si ay u koraan oo competition-ka uga qayb qaataan inay lala yeesha wax laansho wuxuu keenayaa protection in la wada ilaashado marka reer Puntland waxaan leeyahay haddaynu 51% goals leenahay aan ku dadaalo dahabshiil group qaybta Puntland inaynu 51 gaadhno oo reer dahabshiil ay ogolaadaan insha Allah inaynu fursadda ka faa'iideysto aad baan ugu dhiirinayaa dadku xoolo waa ka buuxaan laakiin waxaan arkayay sheerka ugu yaray $101 weeye marka maalgashi laga hadlayo $1,000 waa maalgashi $2,000 waa maalgashi $100,000 waa maalgashi waxaan laga yaabaa maalin aadan filayn sanadkii aakhirkeeda dad badan baan ogahay kambaniyada internationalka maalgashaday marka dambe inuu shaqo ka maarmo biilka noloshiisa ay meel uga soo dhacdo gaadha marka xilliganna dhaqaaluhu wuxuu gelayaa dhaqaaluhu kan weeyahay competition waad aragteen dunida bangiyada waaweynaba isu tagaya ama kambaniyada waaweynaba hal kambani noqonaya marka insha Allah taala arintaas aad baan u dhiirinaynaa